السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود وهذا أصحابته ملك السودانية كجوكتين ما أنت وحن ربا إن هلكان إذا كسو قد بيو سد حدي ويل يران تكو هدلين مغال كاني لايك صار سدد بدن وقارو يوتيوب كاين سبسكرايب نو صار آتي محسنتين wiilka ugu horeeyay ee yaraan ku hadlay waa nabiyullaahi ciise alayhi salaam waa wiil aan lahayn aabe su'aalo fara badan ayay ka keeneen reer banu israa'iil maalmaha kamid ah ayaga oo su'aal weydiinay hooyadiisa ayay waxay ku tiri wiilka iyaga la hadla markaas ayuu yiri qaala inni abdullahi aataani alkitaab waj'alani nabiyya waa qofka ugu horeeyay ee yaraanta ku hadlay waa nabiyullaahi ciise alayhi salaam qofka labaad waa saaxib jurayj wuxuu ahaa nin aad ugu dadaala cibaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu lahaa mawla ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan ku xusa maalmaha kamid ah asagoo salaad ku jira ayaa waxa uu yimid hooyadiisa waxayna ku tiri yaa jurayj wiilkeedu way u wacday wiilkii asagoo salaadiisa ku jira ayuu yiri ilaahu salaadayda miyaan isku wataa mis hooyadeyda ayaan la hadlaa wiilkii wuxuu go'aan ku gaaray inuu salaadiisa isku wato maalintii labaad waxay u timaaday asagoo salaad ku jira haddana waxay ku tiri yaa jurayj wiilkii wuxuu yiri ilaahu salaadayda maan isku wataa mis hooyadeyda ayaan la hadlaa markaas ayuu wuxuu go'aan ku gaaray inuu salaadiisa isku wato maalintii saddexaad hooyadii way u timid waxay aragtay wiilkeeda oo salaadii ku jira kadibna way u wacday wuxuuna ku yiri ilaahu hooyadeyda maan la hadlaa mis salaada ayaan sii wataa wuxuu go'aan ku gaaray inuu salaadiisa sii wato hooyadii way xanaagday kadib waxay tiri ilaahay waxaan ka codsanayaa wiilkayga inaadan iga dilin ilaa gabdhaha sharmootooyinka wajigooda arko hooyadii wiilkeeda sidaas ayay go'aan ku gaartay reer banu israa'iil waxay isku dayeen sidii loo fidnayn lahaa adoonkii caabidka ahaa ee jurayj maalmaha kamid ah ayaa waxaa timid gabadhaasi waxay ahayd gabar aad u qurux badan reer banu israa'iil dhaxdoodana qurux aad ugu leh waxayna u timid jurayj hooyadiis waxayna ku tiri wiilkaaga aniga ayaan soo fidlaynay hooyadii way soo edantay gabadhii waxay u timid jurayj oo mawliciisa ku jira markay soo hor istaagtay jurayj muusan fiirinin dhinaca waliba way ka istaagtay markaas waxay go'aan ku gaartay sida wiilkaani u gelin lahayd mixnad kale waxayna u tagtay nin kale halkaas ay ku urowday ugu dambeyntii gabadhii waxay dhashay ilmihii markay dhashay waxay tiri ilmahaani waxa iga dhalay jurayj reer bani israa'iil waxay u yimaadeen jurayj ayagoo markii ka burburiyay mawlicii uu ku jiray kadib wuxuu ku yiri maxaa dhacay waxayna ku yiraahdeen waxaad ilmo ka dhashay naag hiblaayo markaas ayuu yiri ilmaha hal ii keeno ilmihii ayaa loo keenay markaas ayuu salaad tukaday jurayj kadibna dhabtiis ayuu geliyay wuxuuna ku yiri ilmihii waa kuma aabahaada wuxuuna yiri aabahaygu waa hibil waa ninka gowsaarka ee xoolaha raaco dadkii hal mar ay wada yaabeen markaas ay waxay ku yiraahdeen jurayj waan ka khaldanahay ee naga raalinago ee waxaynu rabnaa inaynu mawlacaada kuuga dhisno dahab iyo fidla markaas ayuu ku yiri mawlacayga sidiisa iigu celi sidaas ayay ugu celiyeen wuxuuna ahaa nin ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan ku xiran wiilka saddexaad ee yaraanta ku hadlay hadii aan u gudubno maalmaha kamid ah hooyo oo wiilkeeda nuujinaysa ayaa horteeda waxa soo maray nin faras saaran ninkaas wuxuu ahaa nin aad u qurux badan dharkiisana wuxuu ahaa dhar aad u qurux badan markaas ayay tiri ilaahu wiilkayga ninkan oo kale iiga dhig wiilkii intuu naaska afkiisa ka saaray ayuu wuxuu yiri ilaahayow ninkaani oo kale ha iiga dhigan hooyadii ayada oo yaaban naaskii ayuu ku laabtay wax yar kadib meeshii waxa soo maray maamo adoona oo si aad loo garaacay markii ay aragtay ayaa waxay tiri ilaahayow wiilkayga dhibkaani ama maamadaani oo kale ha iiga dhigan markaas ayuu yiri ilaahow maamadaani oo kale iigu dhig wiilkii uu hadlay kadib hooyadii way yaabtay wiilkeeda ayay la hadashay waxay ku tiri wiilkaygiyow markii hore markaan hadlayna waxaad dhahday ilaahow ninkan oo kale ha iiga dhigan markii maamadaani la garaacay aan arkay aan saas dhahayna sidan ayaa tiri ee maxaa dhacay wiilkii wuxuu yiri ninka koowaad ee faraska saarana waa nin isla weyn oo mutakabbirnimo ku jirta waa nin ilaahay subhanahu wa ta'ala ibaadadiisa aan ku ficnayn waa nin isla weyn oo bulshada dhexdeeda mutakabbirnimo ku socda gabadhaana waa gabar ay ku aynayaan dhilinimo balse aysan sameeynin wax dhibaato ah
ayaga ayaa dhibkaana u geysanayay. Marka waxaan doorbiday inaan gabadhaani oo kale noqdo si Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa aan ugu dhinto. Saddexdaani waa saddexdii hadleen ayaga oo yar. Waxaa dareemayaa muuqaalkaani wax badan inaad ka faa'iideen. Muuqaalkaani like saar, YouTube-keena subscribe noo saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. intaan muuqaaliga aan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh.